aadanuhu miyuu la dhashaa wanaagga mise wanaaggu waa wax uu ka barto bulshada isagu ku hareereysan. bal ka waran haddii nidaamyadii iyo xeerarka u degsan bulshooyinka oo dhan ay si lama filaan u baaba'aan. bal ka waran haddii caruur la geeyo jasiirad cilla ah misana uusan joogin qof weyn oo iyaga la taliyo amaba amro. nidaam nololeedkoodu sidee ayuu noqonayaa haddii ay ilbaxnimadu burburto? talow maxaa dhacaya? su'aalahan iyo kuwo kale oo badan waxaa inooga jawaabaya sheekafneedka caanka ah ee The Lord of Flies ee ku soo dhawaada khulaasada buuggeena maanta. sheekafneedka The Lord of Flies oo afkeena hooyo ku noqonayso sayidka tixsiyada waxaa ku fariiraysta William Golding. William Golding waa qoraa Ingiriis ah, noolaana 1911 ilaa 1993. wuxuu William ku soo koray guri aqoonta iyo ogaalka aad looga ciseeyo oo aabbihi wuxuu ahaa macallin iskuul, misna si qoto dheer u aaminsan fikirka caqliga iyo weliba sababaynta. taasina waxay saameysay aragtida uu William adduunka iyo aadanahaba uu ka haysto. inkastoo uu William kolkii hore diiradda saari jiray sayniska, haddana kolkii dambe wuxuu u wareegay suugaanta Ingiriiska. kolkii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, wuxuu William ka mid noqday dadyowgii ka biyacabay webiga naarta oo wuxuu ka mid ahaa ciidamada badda ee Britain. wuxuuna labadiisa indhood ku arkay burbur, rabshad, dagaal, halaag iyo weliba qiimo la'aanta ruuxda aadanaha. khibradii uu halkan ka qaatay waxay xoqeen garaadkiisa, wuxuuna bilaabay inuu dib uga fikiro habdhaqanka aadanaha, isna weydiiyo aadanuhu ma noolo asal ahaan wanaagsanba mise wanaaggu waa wax uu ka barto bulshada isaga ku hareeraysan. William Golding wuxuu ka mid ahaa qoraayadii la guddoonsiiyey abaalmarinta caanka ah ee Nobel Prize-ka. kolkii la fiiriyo wax soo saarka William, waxaa ugu caansan sheekafaneedyada kale ah dhaxalka, mugdiga muuqda, iyo weliba sheekafaneedka aan barnaamijkeena maanta ku soo qaadan doono ee sayidka tixsiyada. kadib dagaalkii labaad ee adduunka, waxaa qarxaya dagaal saddexaad oo la isku adeegsanayo nuclear si loo badbaadiyo carruurta, maadaama ay yihiin mustaqbalka adduunka iyo hogaamiyaasha Brito. waxaa lagu gurayaa diyaarad, deedna diyaaraddu waxay ku dhacaysaa meel jasiirad ah misana aad cidlo u ah. lama yaqaano sababta ay u dhacday diyaaradda. sabayloodkii wada dhaawac halis ayaa soo gaarayo, inkastoo ay carruurtu wada badbaadayaan. tirada carruurta ee sheekada ku jirta waa ku dhowaad 50 canug, waxayna da'doodu u dhaxaysaa 6 ilaa 12 sano. si gaar ah waxay sheekadu ugu wareegsanaysaa 5 canug ee kala ah Ralph, Jack, Roger, Simon iyo wiil aan magaciisa la garanayn, si carruurta ay ula baxeen Biggie oo macna ahaan noqonayo doofaarkii yaraa. wiil weliba oo 5 carruur ahi ka mid ah wuxuu u taagan yahay misana matalayaa fikrad iyo astaan gaar ah. Ralph wuxuu matalayaa nidaamka, dimuqraadiyadda iyo weliba ilbaxnimada, wuxuuna had iyo jeer isku dayayaa inuu sameeyo xeerar iyo kala dambayn. wuxuuna diiradda saarayaa sidii ay u badbaadi lahaayeen, isagoona heegan u ah wada shaqayn iyo mas'uuliyad, waana ilbaxnimadii oo qof ah. Jack waa cagsiga Ralph, wuxuu matalayaa awood iyo keligii taliyanimo. mar weliba wuxuu ku mashquulsan yahay dil iyo ugaarsi. wuxuu mar weliba ka hor imaanayaa nidaamyada uu dejiyo Ralph, ilaa uuba samaysta qabiil isaga u gaar ah oo uu jirdil iyo dhiig ku xukumo. wuxuuna astaan u yahay awoodda iyo fowdada markii ay xeerarku dariishada ka baxaan. Roger waa gacanyaraha Jack iyo arxandaradii oo qof ah. dadka waxaa ku jira kuwa yaa haddii la iska dhaho meel fariisanayo oo yaa rabshad iyo bilaabo ah. kolka ay waayaan qof indhaha u gudusha ayay waxay isku beddelaan bahal dadcun ah. Rogerna waa tabtaas oo kale. kolka hore wuxuu dhagxaan ku tuurayaa carruurta hareerahooda, hortooda iyo gadaashooda. kolkaas wuxuu ka baqayaa ciqaab. kolkii uu ogaaday inaysan ciqaab jirin ayuu ka baxayaa xadka damiirka, wuxuuna noqonayaa mid ku raaxaysta waxyeelada dadka kale. Roger wuxuu astaan u yahay sida xumaantu ay u noqon karto mid aanan xal lahayn markii uu nidaam bulsheedku u burburo,
iyo sida ay dadyowga qaar u isticmaalaan awoodda iyagoo isku halaynayo saaxiibtinimada hogaamiyaha. Simon waa canuga ugu degan carruurta oo dhan, midna lama jiro labada kooxoodba. waa qunyar socod keligii iska hadaafo, waa xaqiiqo raadiye dhab ah, mar welibana waa la qalad fahmaa. wax uuna matalayaa damiirka, habdhaqanka, cadaaladda iyo weliba ruuxda aadanaha. Biggie waa wiil muuqaal ahaan cayilan oo qacda hore waxaa la moodayaa qof aanan caqli lahayn, waayo aadanuhu wuxuu si dabiici u aaminsan yahay inuusan qof buuran caqli lahayn. waana malaha sababta ay Soomaalidu u tiraahdo nin buuran xariif maaha. sida aan hore u soo sheegnayba, Biggie ma ahan magac rasmi ah, se waana nes jees ah oo ay carruurtu u bixiyeen wiilkan yari. waana canuga keliya oo kiyaalaha xiran misana ugu caqliga badan carruurta oo dhan, wuxuuna matalayaa caqli, aqoon iyo weliba sababeyn. had iyo jeerna wuxuu aaminsan yahay xeerarka iyo qorshaha. inkastoo uu jir ahaan daciif yahay, caqli ahaan waa mid aad u xooggan. kolka ugu horreysa oo ay diyaaraddu ku soo dhacday jasiiradda, carruur waa carruur waxay arrinkaas u arkayaan damaashaad iyo dalxiis, waxayna ku dadaalayaan inay isu yimaadaan. waxayna xeebta ka helayaan qalfoof badeed gudbin karta codka qofka, waxaana sida loo isticmaalay sheegayo Biggie. deedna Ralph uu isticmaalayaa si uu carruurta isugu yeero. wuxuuna carruurta la wadaagayaa in dab weyn oo aan marnaba damayn la shido, si ay maraakiibta jasiiradda marayo ay u arkaan oo loogu soo gurmado, maadaama aanan lagu ogeyn meesha. sidoo kale isla kulankaasi waxaa hogaamiyahan loo dooranayaa Ralph, maadaama uu yahay qof dadka isku wadi karo. durbadiiba Jack waa uu xanaaqayaa, si caradiisa lama wadaagayo carruurta kale. arrinka ugu horreeya ee Ralph uu soo jeedinaya ayaa ah, kolka uu rabo canug inuu hadlo waa inuu qalfoof badeed ka qabsadaa, dadka kalena waa inay ixtiraamaan oo ay dhegaystaan ra'yigiisa, waayo qalfoof badeedku wuxuu u taagan yahay xurriyadda. si dab loo shido waxaa la isticmaalayaa ookiyaalaha Biggie. inkastoo ay kolka hore dab xoogan oo keenta oo dhan ku faafi karo shidayaan, haddana waa ay ku guulaysanayaan inay damiyaan, waxayna qaadanayaan khibradooda ugu horreysa ee jasiiradda. jasiiraddani qof weyn ma joogo, qof weyn ma jiro micnaheedu waa ma jiro cashir la diyaarinayo, mas-uuliyad, edeb, xeer iyo howl oo dhan. carruurta oo dhan kolka laga reebo Ralph iyo Biggie, inta kale wax meesha ka dhacayo waa uun u ciyaar. xitaa qalfoof badeedka la isticmaalayo kolka la hadlayo waxay u arkaan qayb ciyaarta ka mid ahi. carruurtani ma yaqaanaan saacadda la joogo, xitaa ma yaqaanaan maalinta ay tahay maalintaasi. sidoo kale wuxuu Ralph soo jeedinayaa in loo kaltamo ilaalinta dabka oo ay qoloba kol ilaaliso si uusan u damin. si Jack iyo koox isaga raacsan iyadoo ay tookadoodu tahay ayay ugaarsi aadayaan. deedna helikobtar ayaa soo maraya jasiiradda. Ralph iyo Biggie waxay isku dayayaan inay u qeyliyaan helikobtarka si loo badbaadiyo, si nasiib xumo lama maqlayo codkooda. kolka uu Ralph imaado goobtii dabka, dabku waaba uu dhintay. deedna wuxuu ku qaylinayaa Jack iyo kooxdiisa, maadaama ay mas-uuliyaddii la saaray ay dayaceen. si Jack wuxuu ku andacoonayaa inaysan maalin kasta ku noolaan karin miro oo ay u baahan yihiin hilib, sidaa darteedna ay ugaarsi u aadeen. wuxuuna doodiisa raacinayaa inuu qabiil gooni oo ugaarsadayaal ah misena uu isaga u taliyo uu samaysanayo. deedna waxaa raacayo carruur badan, wuxuuna ku suntayaa kooxdiisa dhiigga doofaar ay soo ugaarsadeen. mid weliba oo carruurta ka mid ahna waran qoray ka samaysa ayuu ku amrayaa inuu samaysto. wuxuuna maamulkii iyo kala dambayntii gacanta u galayaa keligii taliye. Jack iyo kooxdiisa si ay dab u shitaan waxay xadayaan ookiyaalaha Biggie. deedna waxay dabkaasi ku duwanayaan ugaartii ay soo qabsadeen. Jack maadaama uu manaxa yahay, isaga ayaa go'aan weliba gaarayo. wadatashi ma jiro, qofkii hala dilo uu dhahana nolosha ayaa la dhaafinayaa. habeenada ka mid ah, nin baarashuud wata ayaa ku soo dhacaya buuraha jasiiradda. mugdiga dhexdiisa meedkiisa oo dhintay ayay dabayshu u ruxaysaa bidix iyo midig. mid ka mid a carruurta ayaa arkaya, wuxuuna ku darayaa mala'awaal iyo kutrakuteen. wuxuuna u fasirayaa in waxaasi ay yihiin bahal. xitaa wuxuu leeyahay waa bahal ilka weyn iyo ciddiyo waaweyn leh. tanina waxay carruurtii oo dhan ku beeraysaa cabsi. marka laga reebo Ralph iyo Biggie, carruurta kale oo dhan waa ay rumaysanayaan jiritaanka bahalka.
inkastoo Ralph iyo Big aysan rumaysnayn jiritaanka bahalkaasi, iyaga laftooda waa ay baqayaan, waayo cabsidu waa sida fayraska oo kale, durbadii waa ay faaftaa, waxayna noqotaa cudur si degdeg u dhex mara gunta hoose ee gudaha dadka. laakiin arrinka xiisaha leh maaha jiritaanka bahalka, ee waa sida uu Jack uga faa'iidaysanayo uguna cabsigelinaya carruurta kale oo dhan. xitaa wuxuu leeyahay haddii uu jiro bahalkaasi dadcunka ahi, waxaa dilayo kooxda ugaarsatada ah, isagoona madax ka goonayo doofaar, deedna uu waran surayo madaxii, uuna leeyahay waa hadiyad aan ku dabayno bahalka. Simon ayaa habeenada ka mid ahi soo aadaya goobtii lagu tuhmayey inuu bahal joogo, deedna wuxuu meesha ku arkayaa mid qofeed qurmay, wuxuuna soo aadayaa dhankii carruurta si uu ugu sheegay inuusan bahal meesha joogin. se habeenkii oo aad guducur u ahaa awgii iyo carruurta oo ku goodinayso inay bahalka dilayaan ayaa kor ka arkaya Simon oo soo ordayo, deedna bahal ahaan ay u dilayaan. se waxay wada moogan yihiin kolka Ralph laga reebo inay dileen cadaaladii, farxaddii iyo weliba midnimadii. Ralph aad ayuu ugu murugonayaa dilka Simon, se waxaa sasabayo kuna qancinayo Biggy inaysan iyagu qalad ku lahayn wixii dhacay oo ay bahal ka wada cabsanayeen. sidoo kale uu arrinkani ahaa dil kama ah oo aanan loo qasdin. Biggy waxa uu leeyahay haddii uusan Jack jiri lahayn, yacni haddii aysan awood iyo keligiitalinimo jiri lahayn, wax weliba waa ay wanaagsanaan lahaayeen. deedna Biggy waxa uu soo jeedinayaa khudbad isagoo leh, arrin dhab ayaan idinkala hadlayaa, haddii aanan dhibaatadan ka badbaadin, waxaa inagu waajiba inaan ka fikirno waqti fog sidii aan u noolaan lahayn. waxaa macquula cimrigeena inta ka dhiman, amaba ilaa iyo inta aan ka duqoobayna inaan halkan joogno. waa inaan joojinaa carruurnimada aan ku dhaqmayno. kadib dhagax weyn ayaa korkiisa laga soo daynayaa Biggy, deedna sida ayuu ku dhimanayaa. waxaa mar kale dhimanaya caqliga carruurta, waxayna si 100% u noqonayaan wuxuush iyo waraabayaal. Ralph keligiis ayuu noqonayaa oo dhagaxyo ay carruurta ku tuurayanayaan, sacagaha ayuu wax ka dayayaa. sidoo kale waxaa sheekada ku jira Sam iyo Eric oo aaminsan midnimada Ralph, si ay noloshu ku qasabtay inay ku hoos noolaadaan Jack iyo Roger. xitaa mar ayay arkayaan isagoo Ralph uu dhumanayo, laakiin waa ay qarinayaan. se ugu dambeyn waa la arki, deedna si silac iyo saxriir badan iyagoo raba inay u dilaan ayaa ciidan helicopter ku imaanayo, deedna Ralph iyo carruurtii kaleba sida ayaa loo badbaadinayaa. dhab ahaantii qoraaga sheekadani wuxuu bannaanka keenayaa siday awood u saamayso qofka aadanaha ahi, iyo sida ay jasiiraddii jannada ahayd ee hal mar isugu beddeshay jahannamo lagu wada halaagsamo. haddii aan u soo noqono su'aashii aan barnaamijkeena ku bilownay, aadanuhu miyuu la dhashaa wanaagga, mise wanaaggu waa wax uu ka barto bulshada ku hareeraysan isaga? aragti ahaan waa lagu kala duwan yahay, se waxaa la isku waafaqsan yahay in xumaantu ay ka mid tahay dabeecadda aadanaha, oo uu qofku xumaan karo da'da uu rabo ha jira se William Golding wuxuu sheekafaneedkan inoogu sheegayaa in wanaagga iyo xumuhu uusan hal mar si toosa uunan qofka gudihiisa ugu dhalanin. yacni carruurtu maaha inay gudaha ku wataan malaa'ig amaba shaydaan, balse bulsho, sharci iyo qoys ayaa bara wax wanaagsan, oo haddii aanan la barin amaba aanan yac la dhihin, waxay u dhaqmayaan si wuxuushnimo ah. tanina waxaa tusaale cad inoogu filan wixii ka dhacay jasiiraddani. sidoo kale waxaan ka fahmi karnaa sheekafaneedkani in aadanaha haddii loo daayo wax uu rabo oo aanan xeer iyo nidaam toonna loo fiirin, uu isku beddelayo bahal duurjoog ah, waayo xumaha ku jiro gudaha aadanaha ayaa ka xoog badan mararka qaar ku noolaanshiyaha xeerarka iyo nabad jeceelka. qoraahyada aan kala soo baxay buuggani waxaa ka mid ah, ilbaxnimadu aad ayay u jilicsan tahay, waxayna jirtaa oo keliya markii xeerarka la ixtiraamo. marka ay dowladdu maqan tahay, dabeecadda aadanaha ayaa si degdeg u beddelo nidaamka. bahalka dhabta ahi maaha midka bannaanka joogo, balse waa kan ku jiro gudaha aadanaha. markii ay bulshadu jahwareerto, cabsidu si ka dhaqsiya badan runta ayay u faaftaa. caqligu haddii uusan lahayn ixtiraam iyo cod la maqlo, waa uu daciifaa. xitaa carruurtu waxay noqon karaan wuxuush la mida duurjoogta. ugaarsashada cadowga bannaanka jooga waxay badanaa qarisaa rabshadaha gudaha ka jira. kolka hore wax weliba waa ay fiicnaayeen, wejiyo dhoola caddaynayo iyo saaxiibtinimo qoto dheer.
waxay noqdeen laba kooxood waxayna ahaayeen sidii laba qaaradood oo leh nolol iyo dareenno kala duwan sidaa darteed lama dhisi karin xiriir hagaagsan oo ka dhexeeya iyaga allah haddii uu aadanu waqti dheer u heli lahaa inuu si qoto dheer u fikiro